السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر صاحب يال شبكة سمدمي مدحي وعد باس حسن نور وحانا أساسها إي معاني كتر سنة كلمة سمدمي إن شاء الله وحاورنا وسعي كورس كيني أكو برنامجي كمبيوترات أكاونتينكا كارهان سوفت وير كلو يقانا كويك بوكسكا إن شاء الله maanta waxaan qaadan doonaa cashirkeeni saddexaadna waxaan ka leenahay labadan ujeedadana kood waxay tahay inaynu abuurno service item ujeedada labaadna waxay tahay inaynu abuurno inventory item maxay ku kala duwan yihiin service item iyo inventory item maxay ku kala duwan yihiin bal tusaalahan igahoo waxaad iibisaa dukaan lagu iibiyo qalabka electronicska waxaad iibisaa moobeelada sidoo kaleetood waxaad samaysaa moobeelada halaabane waad samaysaa oo qof ayaa kuu joogo oo moobeelada samee yaqaano dukaankaaga ayuu ka shaqeeyaa moobeelka soo halaabo wuu sameeyaa lacag meeshaas way kaa soo gashaa sidoo kaleetoodna moobeelada iyo qalabad kale aa iibiysan lacag ayaa kaa soo gasho marka waxaan rabnaa inaan kala ogaano soomaalida badankooda wax dhan hal meel ay iskugu jabaan laakiinse anaga waa hormarnay waxaa isticmaal waxay tahay waxaa loo yaqaano digital aa isticmaalnaa marka bisha dhammaanta waxaan rabnaa inaan ogaano lacagta moobeelada ku soo sameynay inta naga soo gashay okay yani macaamiil kasta moobeel naga samaysto lacagta aan ka qaadnay inta ay tahay inaan ogaanaa rabnaa sidoo kale waxaan rabnaa inaan ogaano moobeelada aa iibine lacagta naga soo gasho inaan ogaanaa rabnaa okay marka waxaa go-aan aan ku qaadanaysaa markii ogaad intaas waxaa ogaanaysaa meesha faa'iido badan aad ka hesho meeshaasaa xoog saari doontaa ujeedada dhan laga leeyahay waa intaas marka labadan ujeedada cashirkeena ka leenahay ee ku soo dhawaada cashirkeena okay markii wareysaa soo baakacsano softwarekeena QuickBookska sidaan ayuu u yaala halkan waxaa ka fiirinaysaa company magaciisa okay markasta waa ku muhiim sababtoo ah lama rabo inaa wax isku qalado adoo laba shirkad ugu shaqeynayo computerka ugu shaqeynayo yani shirkada xogteeda inaa gelisan lama shaqta xogteeda markasta soo kiciso inaa inta iska fiiriso waa ku muhiim shirkada magaceeda marka waxaad tegaysaa list meesha ku qoran tahay tegaysaa kadib waxaa kasii dooran doontaa item list shaashada lista ku soo bixi doonto marka waxaan rabnaa laba item hadda noo abuuran oo qaab default u samaysan markii company-na aan soo dooranay oo noo sameeyay midka waxa sales taxi waxaas hadda muhiim nooma ahan waxaan rabnaa inaan sameyno ujeedadana waxay tahay service item inaan sameynaa rabnaa sidee u sameyn doontaa waxaad leedahay intaa imaan doonta item waxaad ku dhufan doontaa new shaashadaana ku soo bixi doonto okay waxaa rabaa qaab kale inaan ku baro oo adina aa ku soo baxsan karto shaashadan iska xir shaashadan right kaliya ku siinaysaa waxaad dooranaysaa new oo ku soo bixi shaashada qaabka saddexaadna wuxuu yahay inaad iska xirto aad doorato aad taabato control n shaashadu way ku soo bixaysaa saddexdaas qaab baa ku soo baxsan kartaa qaab ku fudud marka adiga yaqaan okay meeshan waxaa dooraynaa service aad dooraynaa marka service aad doorato meeshan qoranta item name ama number waxaa qoraysaa shayga magaciisa tusaale ahaan anaga waxaan qoraynaa mobile repairing markii aad magaca qorto halkan ay imaanaysaa u qoran tahay accountigani waxaa weeye markii aad يعني سيرفيس ay qabato lacagta meesha lagu shubi lahay okay yani markii mobile qof u sameeyso oo lacag revenue markaa soo galayso ha $5 $10 lacagtaas aad soo qaaday akoonka ay ku dhici lahayd waa inaad ka doorataa service revenue ama akoonka af Soomaaliya ku qoran adile waay laakiin muhiimadu waxay tahay inaan sales revenue oo san ka noqon oo yani sales uu yahay laakiin saleska hadhowtu waxaan rabnaa inventory inaa ziris ku xirnaa rabnaa markaas meenan laakiin kan waxaa ku xiraysaa service revenue meeshaana tegaysaa waxaa qoraysaa service revenue hadda manoo abuurno laakiinse markaa qorto enter aad leedahay markaa enter aad taabato oo kuu leeyahay service revenue is not in account list service revenue makuu samaysno waayo adoo ii samaysna waxaa leedahay set up hadda ii sameey okay meeshaan u korayso waa inay ku doornaataa income asaga ku doorayo laakiin haddii ku doornin waa inaa income ka soo dhigtaa save and close taabanaysaa haddeertaan service revenue waa sameynay waxaa ku dhufanaysaa okay waa ujeedaa halkan waxaa ku qoran haddii aan shaashada aan idiin weyneeyo waxaa ku qoran mobile repairing typekiis inuu yahay service akoonka ku xiran yahay wuxuu yahay service revenue haddeertaan yani price ma la samey karo sababto mataqaanaa برايس يعني هادوت وحي كو خيرانتا قفك marka liishiis ayaa baraaska gelinaysaa okay baraas default ee malaan sababtoo waxaan waa service qofa $5 aad ku liishi kartaa qofa $2 ku liishi kartaa marka baraaska everska dooro okay
halkaas waxaa ku eg ujeedadii koowaad ee cashirkeena. bal aan soo fiirin ujeedadii labaadna waxay tahay creating inventory item, inaan sameyno inventory item. okay quickbook markaa kusoo laabano isla meeshii lee tegaysaa list aa ku dhufanaysaa, kadib waxaa kusii dhufan doontaa item list. markii aad doorato saddexdii qaab waa kusoo samaysan kartaa. right click inaad dhahdo new aad dhahdo. okay, kadib meeshan waxaa ka dooran doontaa inventory party. sababtu waxaa tahay anaga waxaan rabnaa inaad sameyno inventory waxaa loo yaqaanaa alaab la taaban karo oo cost kugu fadhiyo. okay, inventory party noo taabo. inventory party markaad taabato meeshan waxaa qoraysaa magaciisa inventorygaas. okay, markaa magacaa qorto wax kale ma sameynaysid. meeshaan ay qoran tahay cost, waxaa gelinaysaa lacagta uu kugu fadhiyo. yani marka aad soo gadanaysid lacagta aad kusoo iibis ayaa halkan gelinaysaa. tusaalahaan anaga waxaan dhehnaa wuxuu noogu fadhiyaa $100 noogu fadhiyaa. okay, cost markaa gelino meeshaani cost of goods sold account asiga as gelinayo. okay, si automatic uu isku gelinaa sababtoo ah anaga hore usoo sheegay inaan tafaariiq gadino. okay, meeshaan qoran tahay income account ayaa furaysaa. sales revenue waa gelinayna. okay, sales revenue hadda akoonkaas manoo sameysno. okay, click ku sii. wuxuu ku leeyahay sales revenue is not in the account list, kuma jiro. hadda baraa leedahay haddaan ku jirin. safe and close bisa wax kale ma taabanaysid. intaas markaa sameyso waxaan dhan asaas geli doono inventory assetka asaas geli doono. okay, haddii ay jirto yani inventory markaa sameynaysid dukaankaaga haddii inventory u yaalo on hand, waxaa laga wadaa yani hadda dukaankeena dukaan cusub maaha, dukaan hore u shaqeynaya waaye. waxaa rabnaa inaan xogteena quickbook aa gelino. marka inventoryga Samsung continue waxaa noo yaalo dukaanka inta ku taasha aad gelinaysaa. haddii aysan waxba aysan ku aalin oo aad kadib aad soo gadan rabto ebra ugu tagaysaa. bal anaga haddeertaan aan ugu tagno ebra aan ugu tagno waxaa ku dhufan doontaa halkay qoran tahay. okay, meeshaan waxaa kaaga soo bixi doono inaa abuurtay Samsung A51 typekiisana uu yahay inventory party, akoonka uu ku xiran yahay uu yahay sales revenue, wax ku yaalan uu yahay 0, barayskiisana 0. waxaa rabnaa in oo price u sameyno sababtu waxay tahay Samsungkani inventory waaye. haddaad waa ilo sorry right click ku siinaysaa waxaa leeyahay new edit item. edit markaad tiraahdo halkan waxaa kaaga soo bixi doona sales price. mobilkan wuxuu nagu fadhiyaa $100. waxaa rabaa inaan gadno tusaale ahaan $130 aan gadinaa. $130 markaa dhahdo halkan wuxuu kugu sheegayaa 30% inaa faa'iidaysid. waana xaqiiqo $30 ka faa'iidona wuxuu nagu fadhiyaa $100 haddii loo qaybiyo 30% faa'iidadeena. okay ila haddeertan waxaa ujeedaa in braaska uu isbedel oo noqday $130. haddeertan haddii aan intus reportskeen wax saameyna ma yeelanayo sababta waxay tahay anaga waxba ma aanan gelin. yani waxaa sameynay oo keliya inventory item, waxna ma aanan gelin. markii uun dhahayna hore wax maa kaa yili on hand ebra gelina. on hand hadda wax gelin lahayn balance sheetkeena waa isbedeli lahay sababtoo ah dukaankeena alaabaa taalo, alaabtaasi qiimaheeda inta soo geli doona. bal aan intuso tusaale kaleetood anigoo quantity on hand gelinayno yani number gelinayno. sida haddeertaan aan teginaa list aan teginaa qaybta anagoo iska xirayno. okay, waxaa rabnaa inaan iska xirno. iska xir kadib waxaad tegaysaa list, waxaa kasii dooran doontaa item list, new aad kasii dooran doontaa. waxaa dhehaysaa inventory part waa buubsiinaa sababtoo ah qaybta hore usoo sharxa iyadoo faahfaahsan. meeshan waxaa gelinaynaa telefoon iPhone inaan gadayno tusaale ahaan. okay, markaa meesha magacaa gelino halkan waxaa gelin doonaa costiga. tusaale ahaan mobilkan wuxuu nagu fadhiyaa $200 iska dheh. waxaa gadaynaa 300 sales revenue hadda wuu ku jiraa laakiin haddaad kuma uusan jirin. okay, sales revenue waa dooranaysaa. marka aad doorato halkan waxaan kugu sheegaa inaa faa'iidaysa 50%. on hand waxaa gelinaynaa meeqa xabaa kuu taalo kuliyaa. waxaa ii taalaa leenahay tusaale ahaan 10 xabaa ii taalaa leeyahay. okay, marka waxaa rabnaa hadhow balance sheetkan inaan ka aragno mobile iPhone ah oo noogu fadhiya $200 10 xabana ee nooga taasho meeqa lacagaa noo taasho markaas. يعني العقد منو تاال لكن inventory قيمة أيو ليه. أوكي وأقدر inventory asset ألو يخانا طبعا موبيل وهالكي بلو بقول أنه وفر قيمة هان ميقان قدام تاع $200. مركو حاربنا inventory asset كان إنه $200 إنه وبرت. أوكي بل أوكي عدانو
okay markaa dhaad halkan waxaa kaaga soo baxa iPhone 12 wixii dhan kaaga soo baxa xogtii dhan. Okay waxaan rabnaa reportskan inaan ku laabano reports company and financial kadibna balance sheet aan ku dhufano. balance sheetkeena wuu isbedelay sababtu waxay tahay waxaan dhahnay waxaa noo yaala 200 yani waxaa noo yaala inaan $200 telefoon noogu fadhiyo aad 10 xab noogu taashaa. halkan waxaa ujeedaa inventory asset inuu ku jiro $2,000 inuu ku jirto. halkan waxaa kusoo gabagabeynayaa cashirkeeni qaybtiisa ugu horeysay. waxaa jiri doonta qayb kale man rabo muuqaalkan inuu idinku dheeraado. waxaan samayn doonaa isla cashirkan aan kasoo diyaari doonaa part 2. fadlan haddii aad muuqaalkaa dhamaysatay waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalkan aad like saarto. waa Cabdibaasit Xasan Nuur oo idin leh adoo dhaxal reebi kara waa noqon inta aala tabin. subxaana rabbika rabbil cizzati camaa yasifuuna wasalaamun cala almursaliina walxamdu lilaahi rabbil caalamiin.